dhegeystayaal falaqaynta jimcaha ee galabta oo jimco ah waxaan ku soo qaadan doonaa shirkii London ee muddada dheer la sugayay oo shalay ka dhacay magaalada London oo natiijadii ka soo baxdayna aan xalay iyo saaka bisi xoog leh uga hadalnay oo aan maanta eegi doono bal sida ay dhegeystayaashu u arkeen iyo sida qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii ay u arkeen ama ra'yiga ay ka qabaan waxa uu yahay waxaan ku horeynaynaa magaalada Hargeysa oo markii ugu horeysay uu madaxweynaha Soomaaliland ka qayb galay shir Soomaaliya looga hadlayo arrimaheeda madaxweyne Axmed Maxamuud Silaayo iyadoo taas ay ahayd sida aan horeba riboorada ugu sii deynay mid mucaaradka iyo siyaasiyiinta kale ee reer Soomaaliland ay ku taageersanayeen in uu ka qayb galo iyagoo u arkay halkaas in uu ka jeedin doono fikirka ay iyagu ka qabaan midowga ama kala go'a Soomaaliya iyo goonisitaanka Soomaaliland ra'yiga ay ka qabaan halkaana uu madaxda caalamka ay joogtay khudbadii uu ka jeediyay kadib bal sida ay dhageystayaashu u arkaan gaar ahaan magaalada Hargeysa wariyaha BBC-da Axmed Saciid Cige ayaa telefoonka microphone-ka la dhexmaray aniga oo ah injineer Maxamed Cali Maxamed ahna macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda Hargeysa iyo Golisba anigu waxaan arkaa shirka shalay soo dhamaaday kusoo dhamaaday London inuu ahaa shir guul ah dhammaan Soomaalida iyo Soomaaliland qoladii Soomaaliland waxaanu aad u appreciate gareynaynaa oo soo dhaweynaynaa qodobka lixaad kaasoo leh waa in dawladda Soomaaliland iyo dawladda TFG-da hadda joogta ama tayman doonta waa inay ka heshiyaan mustaqbalkooda siyaasadeed si ay wada noolaan lahaayeen qodobkaasi waxa weeye qodob muhiim ah waa qodobka nabadgelyada Soomaaliya oo dhan iyo waddanka iyo geeska Afrika oo ku xidhan yahay waan soo dhaweynaa waxaan aaminsanahay adduunyada asiibtay maanta meeshii boogtii dhibaatadu ka taagday Soomaaliya waxaanu leenahay walaalaha iyo Soomaaliyeedna arrimooda ha xalistaan ha dhameystaan aan wada hadallo laba dawladood hore inoo ahayn aynu iska heshiino wixii mustaqbalkeena iyo seen wada noolaan lahayn iyo dirsi wada noqon lahaynba anu taasan ku soo gabagabaynahay markay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Ismaan Xasan Mire gudoomiyaha ururka siyaasiga ee jamhuuriga run ahaantii aad iyo aad baan u hambalyeeynaa shirkaas go'aanadii ka soo baxay dadku inta badan shaki iyo fikrado badan baa la qabay laakiin dhiiranadii uu ku dhiiraday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacbiga Soomaaliland guud ahaan aad iyo aad baa leeyahay waa ugu hambalyeeynaa guul baana ka soo baxday waxaan hambalyada gaarka u sii dirayaa shacbiga taageerayaasha muwaadiniinta Soomaaliland ee ka qayb galay banaanbixii weynaa ee laga dhigay Downing Street hortiisa oo runtii muujiyay geesinimo karti u adkaystay dhibtii iyo roobkii jiray sidoo ahaa taasana furo wahayd waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha markii uu si toos ah ula kulmay shirka iyo banaanbaxa kadib iyo taageerada prime ministerka Ingiriiska oo gaar u arkay ay ka wada doodeen ka sheekaysteen arrimihii Soomaaliland halkana madaxweynuhu markii uu noo yeeray ururada wuxuu ballan qaaday inuu og yahay in khayr ugu jiro shirkaasi in Soomaaliland ka qayb gasho runtii waa fursad weyn oo taariikhiya mar haddii intaasoo dawladeed isku hor yimaadeen oo ay ka shireen qadiyadii Soomaalilandna lagu daray memorandumkii ama ajandihii ka soo baxay outcome-kii waxay noqonaysaa wax weyn oo taariikhda gashay waa markii ugu horeysay adduunku si toos ah ugu dhawaaqeen in Soomaaliland iyo dawladda TFG ama ta soo socotaaba ay face to face isku arkaan arrimahooda siyaasadda ka doodaan waxaan gaar ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo runtii daafur adag ku sameeyay dhibtii Soomaaliyeedna ka soo sheekeeyay muujiyay in maanta Soomaaliland u bislaatay wax qabsatay wax weyn oo nabadgeliyo dimuqraadiyad inta muujisay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Aadan Cabdilaahi shirkii ka dhacay London waxaan u arkaa inay jamhuuriyadda Soomaaliland goonisitaanki maanta uu yahay